السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمانتنا بني سلامنا waxa iga dambeeya dhamaan dhalinyarada reer Garowe ee TikTokers-ka ahaa maanta halkan waxa ku qabanaynay shir jaraa'id aan uga hadlayno warka foosha xun ee dawladda Soomaaliya ku soo qaaday dawladda TikTok waxa rabnaa in aan ka soo jeedino 5 bayaan qodob koowaad Puntland inaysan dhag jalaq u siin doonin warka aan la mahdin ee argagaxa leh ay dawladda Soomaaliya ay ka soo saartay dawladda TikTok labo waxaan cadeynaynaa in dawladdu eedaha ay soo jeedisay inaysan waxba ka jirin waxaana leenahay laamo kala duwan oo dawladda ah kuwaas oo qabta shaqooyin muhiim u ah TikTok kana hortaga waxyaabaha xun saddex dawladda sare ee TikTok waxay waday qorshe lagu daafurayo waxyaabaha lidka ku ah diinteena suuban iyo dhaqankeena oo lagu sifayn doono TikTok muddo kooban qodobka afraad dawladda Soomaaliya waxaanu ku raacsanahay in guud ahaan la joojiyo shirkadaha dhaqan xumada ah ee Telegram iyo 1xBeat waxaana xaqiiqsanahay in eedeymaha ugu badan ay nooga yimaadaan Telegramka qodobka shanaad waxaan cambaareynaa qodobka shanaad waxaan cambaareynaa weerarka caadada ay ka dhigatay dawladda federaalka oo ay mar walba ku soo qaado dawladda madaxa banaan ee TikTok in aysan mardama jiri doonin aanu ka qaadi doono talaabo sharciya oo aanu u hadlayno arintaas bismillaah horta halkan waxaan ugu mahad celinayaa saxaafadda heeganka ugu jirta markasta dhalinyarada aad baan ugu mahad celinayaa dhammaan saxaafadda guud ahaan gaar ahaan maanta waxaanu soo saarnay 5 qodob oo ku socda aaladda TikTok iyo aanu ka qabno fikir aanu ka qabno qodobka ay soo saartay dawladda dhexe ee Soomaaliya balbalaarin maayo shir saacada qaatay waxaanu soo saarnay 5 qodob oo aan ku raacsanahay afhayeenkii TikTok oo halkan ka jeediyay sidaan ogsoonahay aaladdan TikTok waxa ku mashquulsan dhalinyaro 3 milyan ah baa ku mashquulsan waxaad ogsoontihiin dhalinyaro 100,000 ah inay shaqo ka hesho oo sida xayeysiinta iyo ganacsi fikir abuur ay la timaado talentigoodana ay ku soo bandhigto dawladda TikTok iyo dawladda Puntland dastuurkeeda waxa ku qoran inay gaar u tashan karto hadii waxaysan raali ka ahayn ay magaranaysa dawladda dhexe ku soo qaado wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh